وعقولي قرت هذا الهاي تبى حرام وين أنا بدي قانا هاي لباتن تضبطشون أنا بجيشنا هاي ماشي إذا شيء جيش معناها كي وحبكم الله زي راس كمبوني يو بورجا وهاي ونحس لباتن شن ميل كيون يو محل جري راس كمبوني شن ميل لبن ميل نجا لبن ميل بر نجا لبن ميل بر إيجا أسكله أنا نافيجيشن أنا كي وهاي هوغا نما نقدر أنتي سادرتي أنا نقول كوريس ماين كي بدينا مسوهم كوري كرت ما نسوهم كوري ندي ما هوينا مدي بكرو كذو دار مدي بكرو إنتي جبر سوا مالي نوشاي كي بدينا ممنوع كرتها نين مسوهم كوري كرو نين مسوهم لبتشر أي دولة كينيا عصتي دعوة الصومالية كينيا ودحيس هيك تلا بدأ تلا تبلون كينيا محك عصوص تاس وحواي اسكو هل معناها كتين واي أنا حكم العالم كاكو معناها واحد أي نو جويش أرالي كناي هاسي عهتي عنك كلمة داس كلمة كستول شيء بدينا نين مسوهم غريكرو عالم كا إذا وقيلنا السلام عليكم دولة الصومالية وفد ورئيس الوزراء وغير فوجئنا يوم ومقالة الكثير جونا ويدي الدعوة دي مرلمات دبلون سدوا تاس دبلون واحد اللي راهم مجرته عالم كان كو عطسنينا واحد دبلون اللي راهم مجرته ما أنا أقولين أنت جبرت صومالية جوك دعوتنا دبلون دقماي السلام عليكم بحال وقبا الساعة دبك الصومال وعن وقبا غيا إنا ودن كصومالية لونغري كريم بد إسكناف ودن كران إنا لونغري كريم هذيك هاتي لا يا ضب بدي بالدفاعية ولا بحية ما بحسها نيك كوبانا كوبانا بحية ها دبك الصومالية محل دون إن الساعة خلي دفاع كرام زي لا إلى راس كموري حل عضوي صومالي زي لا إلى راس كموري إسك عضوي ديار موتي هنا دفاعنا أولو بس أنا إلهي أودي إلهي أنت أقدر سنينا ديار بتاعي ديار النص هذا ساعدنا هذا الإيران ولا بحية ها كينيا ظلم فرب بدن بي بدda Soomaaliya bariga Soomaaliya ba ku haysa goboladaas aan ka soo jeeda dhibaato badan ayay maalka iyo nafta iyo dadka iyo diinta iyo dunyadaba ayay kaga haysaa khaasatan badda way nagu wada haysataa Soomaaliya oo dhan ayay ka dhax muuqatay laakiin gobolka si gaar ayay dhibaatooyin ugu haysaa waxaan qaranka Soomaaliya waan u mahad celinayaa sida wanaagsan oo miisaan kale oo siyaasadooda ay ugu dhimriyeen haday kuwa wax fahmayeen waan uga mahad celinayaa waxaan dhihi lahaa taladaydo tayda haday noqonaysa afartan sano iyo afarta ku xigtay afarta kalaba ha hayeena ayagoo ceynaanka ha hayeenaan ba dhihi lahaa waa sida ay wax u wadaan sida ila fiicanta waxaan leeyahay baddaas iyo bariga Soomaaliya midna lukuma in laha waa daalimiin in la iska celiyeen u baahan yihiin Kenya waa daalim naweerarayo horeyna isuguma aanan haysan horeyna wax nooguma lahayn waa calooshood u shaqaystayaal qaab dawladeed noolama dhaqmayaan waxaan leeyahay qaranka Soomaaliya lagu hogaamiyay inaan iska dhicino wallahi adeero qalad baan u arkaa anigu iyo horta marka horeba xaq darray wax ku raadinayso badan ma laha Kenya inaga ale haddana waxa la leeyahay wax isugu hagaagsan ma jirno inay cidlo gudaysay day aragtay markaas wixii cimri dheer ay ka sii dhigan kartaba way sameynaysaa way isku dayaysaa laakiin cusur toobaya ma aha مرلبات أي عطستي أو وفد ورئيس الوزراء كهجامين أي أوضاع خضر أو شوجا مقالة هيك أي وحيرة أنه إيران مرلبات تبلغ دعوة الصومالية ديار من يرن قوان كاستوى ركتاي وفد هذه البوت حاجة سنة قوان كحكومتها قالتي ومد كوها وقت جيسي وأنا مد حقه شرعية أنه حقول هاي وأنا كنت حاجة سنة الدولة ده قوان كايسجع قاعدين شعبك الصومالي محله قبحين شعبك وحلوقه بين هيلي هو بس اللي احتاجان دولته ay ku taageeraan waxa la leeyahay qorshe dawladdu wado ee arrinka badda ah ayaa aniguna waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta aad joogto gacmaha isqabsada xilligeedii baa la gaaray hal la taageero dawladda hal la soo dhiciyo wixii xuquuqda ummadda Soomaaliyeed leedahay bad bari iyo cirba waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta badda bariyan la isku haysto Soomaaliya iyo Kenya xaqiiqda marka laga hadlo annaga 60kii xornimo qaadanay Kenya waxay xorowday 63 wixii markaas ka dambeeyay Kenya annaga waxaan ahay laba dal oo diris ah wax khilaafaad nagama dhixin
waxaa nasiib darraha 50 sano kadib Kenya inay tiraahdo Soomaaliya dhulay naga haystaa baday naga haystaa arrintaas waa arrin waxba kama jiraan ah waana arrin ay ka dambeeyaan dad siyaasiyiin ah oo calooshooda shaqaystayaal ah oo raba badayna in cadow uu qaato oo ay ku gargartamaan annaga arrintan waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaheenii hore xasan sheekh oo dacwad geeyay maxkamadda Heeg waxaan kaloo u mahad celinaynaa madaxweynaheenna kale farmaajo oo raacay wadada madaxweynihii hore annaga waxaan Heeg ahayn kuma qanacsanin sababtoo ah Kenya waxay rabtaa in wada hadal aan badayna ka galno hantidayna ma ka galayno wada hadal mana ka geli karno hore dhul nooga haysatay NFD nooga haysatay khayraadkeena iyo siyaasiyiin oo calooshood shaqaystayaal iyo waxaasay rabaan inay noogu soo marmarsiyoodaan ma yeelayno mana qaadanayno maxkamadda Heeg hadda waxaa jooga ra'iisul ku-xigeenkeeni ha joogo wixii halkaas ka soo baxaan ku qanacsannahay mana u dul qaadanayno dawladda Kenya waxaan dawladdeena ka codsanaynaa in xiriirka Kenya aan la leenahay ay ka fiirsato Kenya dal darisaan nahay walaalnimo ma rabaan dirisnimo ma rabaan afrikanimaan ma rabaan sidaas daraaddeed waa in sida ayaga ay noo xushmeey waayeen oo kale annagana inaanan u xushmaynaa la rabaa sababtoo ah xushmada Kenya xushmaynaynay waxay keentay inay yidhaaheen dhulaa naga maqan biri ayagoo Kismaayo Hargeysa sheeganaya la arkaa arrintan Soomaaliya waa inay ka fiirsataa haddaan laga fiirsan xaaladdan waxay keenaysaa dhul la'aan aan ugu dhacayso Kenya waxa soo riixay waa siyaasiyiin calooshood shaqaystayaal ah oo mansab rabo oo mansabka kala weyn yahay dhulka Soomaaliya sidaas daraaddeed dhulka Soomaaliya beec ma aha gorgortan ma aha juqraafiga adduunka waa la yaqaanaa xuduudaha adduunka waa la yaqaanaa Kenya mar walba waxay maxkamadda u diidaysaa waxay tahay waxay og tahay in sharciga caalamiga aysan waxba ku helayn waxay rabtaa xeer mastuur xeer jajab dhul lagu maaro xeer jajab dhulka aabbayaasheena u soo dhintay adeeradeena u soo dhintay waalidkeena u soo dhintay dadaan ku weynay maalaan ku weynay naagahaynaan ku weynay sidaas daraaddeed dawladdayna waxaan kula talinaa inaysan Kenya dhegaysan maxkamadda Heeg waxaan ahayn annaga aan ku qanacsannahay ma jiro waxaan diyaar u nahay hadday xoog noqoto hadday dagaal noqotoba inaan dalkayna difaacno waa wax fiican oo arkaa in mar labaad dib loo dhigo dawladdayna waa ku raacsannaha Kenya maxay u diideen maxkamadda caalamiga ma annaga leenaha maxkamadda caalamiga waxay ka dhaxaysaa adduunka waa lagu kala baxaa Eritrea iyo Ethiopia ku kala baxday waxaa ku kala baxeen Algeria iyo Morocco ku kala baxeen Nigeria iyo Cameroon ku kala baxeen maxay ku diidaa dawladda Kenya waxay rabtaa inay tiraahdo Kismaayo aan leeyahay ma ka yeelayno dhulkeena annaga iskale hadday Kenya dacwo ka qabto ha tagto Heeg